saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Bilowga filimka waxaan aragnaa wiil agoona kaasoo la nool eedadii, sidoo kalena wuxuu aad u xiisayn jiray ciyaarta video gameka. Geemkana wuxuu ku ciyaari jiray magaca Orsis. Ciyaartaanna ma ahayn mid caadiya, qofka ciyaarayana wuxuu u malaynayaa geem dhaba. Jilaaga ciyaartan ugu weynna waa Bruce. Wiilka agoonka ahna ciyaartan wuxuu ku ciyaaraa Bruce, kaasoo uu aad u jeclaa ku ciyaaristiisa. Inkastoo ay meeshu khatar ahaydna xoogaa koonis ah ayay heleen. kadibna waxay ka adkaadeen tartamayaashii ka soo horjeeday. intaa kadibna waxaan aragnaa nin lagu magacaabo Holiday kaasoo khudbo jeedinaya, sidoo kalena wuxuu shaaca ka qaaday in ukun ay ku qarsoon tahay geemkan. qofkii ukuntaa helana wuxuu noqon doonaa milkiilaha cusub ee geemka. ukuntaana waxay ku qarsoon tahay albaabka gadaashiisa. albaabkaasna wuxuu u baahan yahay 3 fure. qofka caqabadahan oo dhan ka gudbana wuxuu heli doonaa 3 fure. challenge-ga koowaadna wuxuu ahaa tartan, mana jiro qof awooda in tartankaas uu uga soo gudbo hal maalin. sidoo kalena tartankan waxaa ka qayb qaadanayay dad badan, waxaana ka mid ahaa kambani lagu magacaabo IOI. maamulaha shirkaddaana wuxuu rabay inuu noqdo milkiilaha geemkan. dhinaca kalena waxaan aragnaa Bruce oo gaari saaran, sidoo kalena qof dumara ayaa la socotay asaga. tartanka ayayna qayb ka ahayd. intaa kadibna tartanku markuu bilowday waxay la kulmeen caqabado badan, sidoo kalena Bruce ilaa iyo hadda safka hore ayuu kaga jiraa tartanka, wuxuuna u muuqdaa mid ku guulaysanaya tartanka. laakiin isla markiiba gurile ayaa meesha yimid, kaasoo burburiyey gaarigiisii, sidoo kalena wuxuu ku sigtay inuu dilo asaga. dhanka kalena Bruce wuxuu arkay gabar tartamo ah oo meesha timid. intaa kadibna gabadhii ayuu gacanta ka qabtay si uu u badbaadiyo. kadibna mootadeedii waxaa burburiyey daanyeerka. intaa dabadeedna waxaan aragnaa Bruce oo u socda maktabadda si uu halkaa uga soo helo waxyaabo ka caawinaya ciyaartiisa. raadin kadibna wuxuu meesha ka soo helay hage. dhammaantoodna waxay go'aansadeen inay horay u socdaan. markuu tartanka bilowdayna qof walba horay ayuu u socday, mana jirin qof gadaal soo eegay. sababta aysan dib u soo eeginna waxay ahayd waxay niyadda ku wada haayeen inay tartanka ku guulaysanayaan. markay ciyaartu bilaabatayna Bruce gaarigiisii gadaal ayuu u dhaqaaqay halkuu horay u socon lahaa. sidaa darteedna waddo dhulka hoosteeda ayaa u furantay asaga. halkaas ayuuna aaday Bruce. intaa kadibna meeshii uu u socday markuu gaaray wuxuu halkaa ugu tegay odagii, sidaas ayuuna ku helay furihii koowaad. dhanka kalena 2 kooxood ayaa ku tartamaysay helitaanka furaha. koox waxay ahayd kooxda Bruce, halka kooxda kalena ay ahayd shirkadda IOI. dhanka kalena milkiilaha shirkadda markuu ogaaday in Bruce uu helay furaha aad ayuu u xanaaqay. intaa kadibna waxaan aragnaa milkiilahaas oo la hadlaya xayawaan naxdin leh oo ku jira geemka. xayawaankiina wuxuu ku yidhi haddii aad ii keentay macluumaad ku saabsan Bruce waxaan ku siin doonaa lacag badan. dhanka kalena Bruce wuxuu raadinayaa tilmaamaha labaad si uu ugu guulaysto furaha labaad. sidoo kalena wuxuu ogaaday furaha meeshuu yaallo. arrintaana waxay la micno tahay inuu ka xishoonayo waxyaabaha uu samaynayo. habeenkii markii la gaarana Bruce iyo saaxiibadii waxay aadeen kalaabka. sidoo kalena kalaabka waxay u tageen inay xog dheeraada ka soo helaan. intaa kadibna gabar meesha joogtay ayuu u sheegay qofka uu yahay. dhanka kalena intay wada sheekaysanayeen hadalkoodii ayaa la maqlay. intaa dabadeedna xogtiisii waxaa lala wadaagay askarta shirkadda, kuwaasoo isla markiiba bilaabay inay soo weeraraan asaga. dhanka kalena Bruce saaxiibadii waxay isku dayeen in saaxiibkood ay halkan ka badbaadiyaan, balse askartii uma ogolaan in si fudud ay halkan uga baxsadaan. intaa kadibna dagaal adag ayaa dhex maray 2 kooxood. intaa kadibna Bruce wuxuu ku guulaystay asagoo adeegsanaya ciyaar maskaxeedkiisa in 60 sekin gudahood uu goobtan isaga baxsado. sidoo kalena asaga iyo saaxiibadiisna ayagoo bad qaba ayay goobta isaga tageen. intaa kadibna markay bannaanka u soo baxeen Bruce saaxiibadii waxay asaga u sheegtay inuusan mar dambe u bareerin khatar intaan la eg. intaa dabadeedna waxay asaga u sheegtay inay akhbaar uga hayso milkiilaha shirkadda, kaasoo raba inuu ku guulaysto maamulitaanka geemkan. sidoo kalena waxay u sheegtay in milkiilaha shirkadda uu doonayo inuu qarribo geemka, wax kastana uu bedelo. si aan arrintaa uga celiyana waxaan ku waayay aabbahay. haddana ninkaa ma awoodo inuu ku guulaysto qorshihiisa, sababtoo ah wiilka agoonka ayaa ka haysta qalabkii uu qorshihiisa ku fushan lahaa. intaa kadibna wiilka yar wuxuu helay fariin uga timid milkiilaha shirkadda IOI-ga, taasoo asaga looga dalbanayo inuu la kulmo milkiilaha. intaa dabadeedna wiilkii yaraa ayaa oggolaaday arrinta. kadibna meesha waxaa ka soo muuqday milkiilihii shirkadda. intaa kadibna milkiiluhu Bruce wuxuu ka codsaday inuu ku soo biiro shirkaddiisa, laakiin Bruce ayaa iska diiday arrinta. intaa dabadeedna milkiilaha wuxuu bilaabay inuu rikaateeyo asaga. intaa kadibna Bruce indhihiisa waxay qabteen warqad uu ku qoran yahay aqoonsiga gaarka ee gaarigiisa iyo lambarkiisa sirta ah.
intaa dabadeedna markuu arrintan ogaaday bannaanka ayuu u soo baxay sababtoo ah milkiilaha shirkadda ayaa rikaateeyey asaga isla markiina qof ayaa afduubtay asaga intaa kadibna wuu miir beelay markuu indhaha soo kala qaadayna wuxuu arkay asagoo qol ku dhex jira sidoo kalena waxaa meesha joogtay gabadhii aan geemka ku soo aragnay gabadhaana cid kale ma ahayne waxay ahayd gabadhii saaxiibka la ahayd Brosfield taasoo ciyaarta ku wehelinaysay labadoodana waxa ugu weyn ay ka wada hadlayeen waxay ahayd inaysan wax shukaansiya samaynin inta hawshan lagu guda jiro sidaa darteedna xiriirkooda ma sii wadi karaan intaa dabadeedna waxay aadeen meeshii ay kula kulmayeen Halliday iyo Marwada meeshaana waxay ahayd tiyaatarka intaa dabadeedna Brosfield saaxiibkii markuu meesha eegay wuxuu ka helay qolkaana waxaa ku jiray islaan waayeele oo wejigeeda laga cabsanayo intaa kadibna waxay bilowday inay weerarto asaga halka asagana uu isku dayayo inuu goobta ka baxsado ugu dambayntiina Brosfield iyo saaxiibadii waxay ku guuleysteen in saaxiibkood ay halkaa ka soo saaraan intaa dabadeedna waxay galeen qol kale oo soombiyaal badan ay joogaan isla markiina kooxdu waxay ku guuleysatay inay goobta isaga baxsadaan intaa kadibna odagii ayaa meesha yimid wuxuuna siiyey furihii kale haddana waxaan aragnaa Brosfield iyo saaxiibadii oo yimid caalamka dhabta ah kadibna waxay bilaabeen inay ka wada doodaan siday u heli lahaayeen furaha saddexaad halka milkiilaha shirkaddana markuu arrintan ogaaday uu soo weeraray ayaga masayr awgii gabadhii Brosfield saaxiibtii ahaydna nafsadeeda waxay u hurtay si ay u badbaadiso asaga dhanka kalena saaxiibada kale markay yimaadeen caalamka dhabta waxay noqdeen dhalinyaro yaryar Brosfieldna arrintii oo dhan wuxuu la wadaagay saaxiibadii dhanka kalena waxaan aragnaa gabadhii oo u xiran milkiilaha shirkadda halka Brosfieldna uu isku dayayo inuu ka soo furdaamiyo halka intaa kadibna wuxuu jabsaday baasweerkii meesha sidoo kalena saaxiibadii wuxuu u sheegay sida looga baxsan karo meeshaas dhanka kalena waxaan aragnaa milkiilaha shirkadda oo isku dayayo inuu xalliyo halxiraalaha saddexaad haddana wuxuu helay tilmaam welina wuxuu si joogta u wadaa isku dayga uu ku doonayo inuu ku helo furaha meesha uu furaha yaalana gaashaan ayaa lagu wareejiyey si aysan cidna u gelin Brosfieldna markuu meesha yimid aad ayuu u xanaaqay sidoo kalena wuxuu xalliyey halxiraalihii dhanka kalena isticmaalayaasha geemka sidoo kale waxay ogaadeen in Brosfield uu ku guuleystay helitaanka furaha koowaad iyo kan labaad intaa kadibna Brosfield ayaa si online uga soo hor muuqday ayaga wuxuuna dadkii weydiistay caawinaad qof walbana markuu arrintan maqlay wuu naxay sababtoo ah waxay ka baqaayeen milkiilaha shirkadda iyo askartiisa sidaa darteedna qofna aqbalin codsigiisa Brosfieldna markuu arrintaa arkay aad ayuu u murugooday halka milkiilihii shirkaddana uu ku farxay arrintaa wax yar kadibna dad badan ayaa meesha yimid kuwaasoo doonaya inay caawiyaan Brosfieldna markuu arrintan arkay aad ayuu u farxay dhanka kalena Brosfield saaxiibkii asagoo adeegsanaya aaladda shirkadda wuxuu ku guuleystay inuu gaashaanka ka saaro meeshii uu furaha yaalay arrintaana waxay sababtay in dagaal weyn uu meesha ka bilowdo kaasoo u dhaxeeya taageerayaasha Brosfield iyo ciidamada shirkadda haddana Brosfield iyo saaxiibadii waxay aadeen dhismaha si ay halkaa uga soo qaadaan furaha saddexaad isla markiina waa la soo weeraray ayaga intuu dagaalkan socdayna dad badan oo laga adkaaday ayaa isaga baxay ciyaarta dhinaca kalena milkiilihii kambaniga wuxuu isku bedelay Machine Godzilla weyn halka Brosfield saaxiibkiina asna uu isku bedelay bahal weyn intaa dabadeedna labadoodii waxaa dhex maray dagaal adag intaa kadibna intuu dagaalkaas socday waxaa awoodiisa hoos loo dhigay Godzillihii intaa dabadeedna robotki ayaa ciyaarta ka saaray Brosfield saaxiibkii kadibna wuxuu rabay inuu weeraro Brosfield laakiin Brosfield saaxiibkii ayaa joojiyey mar kale sidaa darteedna waxaa laga adkaaday milkiilihii shirkadda dhinaca kalena Brosfield saaxiibadii ayaa ka soo baxday shirkadda halka adduunka geemkana uu milkiilaha mar kale isku dayayo inuu Brosfield ka saaro ciyaarta wax walba oo meesha yaalana wuxuu u burburiyay si uusan Brosfield halkan u imaan laakiin Brosfield saaxiibkii ayaa buunta iska dhigay si ay saaxiibadii halkan uga gudbaan Brosfieldna sidaa ayuu ku soo gudbay wuxuuna soo galay dhismaha markuu gudaha soo galayna wuxuu halkaa kula kulmay askar badan oo shirkadda u shaqaysa intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu bambooyin ku qarxiyo ayaga sababtoo ah suurtagal ma ahayn inuu la dagaalo sidaa darteedna qof walba oo meesha joogay si dhaqsiyo leh ayuu u dhintay intaa dabadeedna Brosfield markuu meesha gaaray wuxuu arkay milkiilihii shirkadda oo ciyaaraya ciyaartii ugu dambeysay ee geemka markuu guuleystana meesha ayaa laga waayay intaa kadibna Brosfield ayaa saaxiibadii u sheegay in milkiilihii la waaya markuu ciyaarta ku guuleystay kadib arrintaana waxay la micno tahay in guuleystaha dhabta ee ciyaartan uusan ahayn midka ku guuleysta ciyaarta balse uu yahay qofkii si anshax leh u ciyaara
haddana Bruce wuxuu bilaabay inuu ciyaaro geemka balse isla markiiba milkiilihii shirkadda iyo ciidamadiisii ayaa meesha yimid bumba ayayna meesha ku qarxiyeen wax walba oo meesha yaalana sidaa ayay ku burbureen dhanka kalena milkiilaha shirkadda markuu arrintan arkay aad ayuu u farxay sababtoo ah qof walba ringigiisu hadda wuxuu noqday eber sidoo kalena aad ayuu u sii farxay markuu arkay magaca Bruce oo listiga xagga hore kaga jira dhab ahaantiina ma uusan dhiman maadaama uu bixiyay xoogaa shilimaad ah sidaa ayaana loo siiyey fursad labaad asagoo fursadda ka faa'iidaysanayana wuxuu bilaabay inuu ciyaaro geemka sidoo kalena geemka wuxuu ku soo bandhigay qaab ciyaareed fiican intaa kadibna waxaa meesha yimid Holiday kaasoo furihii saddexaad siiyey asaga ciyaar wanaagiisa ayuuna ku mutaystay laakiin isla markiiba caalamka dhabta waxaa ku weeraray milkiilaha kambaniga dhanka kalena isku dheelitiran la'aanta meesha ka jirtay waxay sababtay inuu qaadan waayo furaha intay meesha ka baxsanayeenna waxaa ayaga soo weeraray gabar ka mid ah askartii shirkadda balse wiilkii agoonka ahaa wuxuu ku guulaystay inuu laad kaga tuuro gaariga haddana wuxuu helay dhammaan furayaashii intaa kadibna albaabka ayuu tagay saddexdii fura ayuuna geliyey ugu dambayntiina albaabadii ayaa sidaa ugu furmay meesha gudaheedana aad bay u qurux badnayd sidoo kalena odagii ayaa meesha joogay wuxuuna asaga ka codsaday inuu heshiis la galo asaga laakiin Bruce isla markiiba wuxuu xaqiiqsaday in arrintan ay shirqool tahay markii laga rabay inuu saxiixo warqadana wuu iska diiday intaa kadibna Holiday wuxuu asaga keenay qolkiisa sidoo kalena wuxuu siiyey ukunta laga maamulo geemka dhinaca kalena milkiilaha markuu arrintan arkay aad ayuu u masayray intaa kadibna wuxuu doonayay in Bruce uu ku weeraro caalamka dhabta ah kadibna markuu gaariga albaabkiisa furay wuxuu arkay maamulkii geemka oo gacanta galay Bruce intuu arrinta la yaabanaana isla markiiba booliska ayaa meesha yimid xabsiga ayayna u taxaabeen asaga haddana waxaan aragnaa wiilkii yaraa ee agoonka ahaa ee Bruce oo noqday milkiilaha geemka Oosiska sidaas ayayna asaga iyo kooxdiisiiba ay ku guuleysteen sidoo kalena waxay hormariyeen xeerarka ciyaarta waxyaabo badan oo xiiso leh ayayna geemka ku soo kordhiyeen muuqaalka ugu dambeeya ee filimkeenana waxaan aragnaa Bruce iyo saaxiibadii oo waqti qurux badan wada qaadanaya filimkeenina meesha ayuu ku soo dhamaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dheh waad ku mahadsan tahay la joogistaada